السلام عليكم ومقال عصب وأن idinkula wadaagi doono tusaale labaad oo tilmaamaya kuwii hanka lahaa hankii Cabdullaahi bin Jahsh. Cabdullaahi bin Jahsh bin Ri'aab waa mid ka mid ah saxaabadii rasuulka. Waxa uu ka soo jeedaa qabiilada caanka ah ee loo yaqaano Bani Khuzayma. Waxa uu walaala ahaa hooyadii mu'miniinta iyo ooridii rasuulka ee Zaynab bint Jahsh. waxa uu ka mid ahaa saxaabadii rasuulka ee ugu horeeyay ee islaamka qaatay. waxa dhashay eedadii rasuulka ee Umayma bint Abd Muttalib, waxaana sidaa abtiyo Ruma ugu ahaa halyeygii weynaa ee dagaalyahanka ahaa ee Hamza bin Abd Muttalib. waxa uu ka qayb galay dagaalkii Badr. waxa lagu naanaysi jiray badii deeqsinimada waxbixintiisa aawadii. waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee loogu yeero amiirkii mu'miniinta, waxaana uu ahaa sidoo kale qofkii ugu horeeyay ee calan islaam loo dhiibo. markii nebiga iyo intii saxaabada ahayd ee la socotay iyaga oo ka soo yaacay dhibkii ay ku hayeen Qurayshtii gaalada ahayd ee reer Maka, ay yimaadeen magaalada Madiina, waxa uu nebigu walaalaysiiyey saxaabada mid ka reer Maka ee muhaajirka ah. waxa uu la walaalaysiiyey mid reer Madiina ah oo ansaari ah. ansaarina macnaheedu waxa weeye mid u gargaaray muhaajiriinta oo ahaa kuwii ka soo yaacay dhibka gaaladii Quraysheed ee u dilayay qaadashada diinta islaamka aawadeed. haddaba nebigu waxa uu Cabdullaahi bin Jahsh walaal uu la qaybsado waxa uu haysto kala dhigay saxaabigii la oran jiray Caasim bin Thaabit. gurigiisii Maka uu kaga yimi oo ahaa daaraha ugu quruxda iyo qaninimada badan Maka, ayaa uu Abu Jahal iska adeegsaday sida uu ninku u adeegsado hantidiisa gaarka ah. arrintaasina waxa ay soo gaadhay Cabdullaahi bin Jahsh. kadibna waxa uu u sheegay nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxa uu se nebigu ugu jawaabay hadal aad u cajab badan oo waxa uu ku yiri, Cabdullaahiyow, miyaadan raalli ka ahayn in uu Allah kuugu bedelo daar jannada ku taala? kadibna Cabdullaahi waxa uu yiri, haa rasuulkii Allow. nebiguna waxa uu ku yiri, daartaasi waa mid aad heli doontid. halkaasayna ku degtay nafti Cabdullaahi bin Jahsh. waa halka aynu rabne inta aanu bilaabmin dagaalkii Uhud ayaa uu la kulmay Cabdullaahi bin Jahsh saxaabigii la oran jiray Sa'd bin Abi Waqqas. waxaana uu ku yiri, miyaa ducaynayn? Sa'dna waxa uu yiri, haa, oo waxa uu ku duceeyay sidan: Allahayow, waxa aan ka baryayaa in aad ila kulansiiso nin dhib badan oo dagaalyahan ah oo inta aan dilo aan qaato waxa uu sito. waxaana uu ka wadaa halka waxa jira wax la yiraahdo salab, oo ah agabka uu sito dagaalyahanka ama ninka aad isdilaysaan ee gaalka ah, waxaana iska leh agabka qofkii dilay. kadibna Cabdullaahi bin Jahsh ayaa inta uu ducaystay yiri sidan: Ilaahayow, waxa aad ila kulansiisaa nin dhib badan oo dagaalyahan ah oo inta aanu dagaalano inta uu i qabto sanka iyo dhagahaba iga jara. maalinka qiyaamahana aad i weydiiso maxaa ka jaray dhagaha iyo sanka. maalinka qiyaamahana aad i weydiiso maxaa ka jaray dhagaha iyo sanka, oo aan dhaho, Ilaahayow, waxa ay la go'een adiga iyo rasuulkaaga aawadin. kadibna aad tiraahdo waa runta. Sa'd ayaa waxa uu yiri, Ilaahay waxa uu aqbalay ducadii Cabdullaahi bin Jahsh oo maalinka dagaalkii Uhud dhacay. casarkiisii ayaa waxa aan arkay sankii iyo dhagihii Cabdullaahi bin Jahsh oo inta la jaray geed la suray oo ay ka soo laalaadaan. bal u fiirso hanka uu lahaa iyo waxa uu alla weydiisanayay inta ay leekayd, isaga oo ka talinaya aayihiisa dambe ee aakhiro. daawade,
waxa aad walaalahaaga qaybta commentiga ama faallada ugu reebtaa hal faa'iido oo aad ka heshay qisada saxaabigan Cabdullaahi bin Jahsh. inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan waa Sakariya Haruuni oo idinkaga tagaya. Assalaamu calaykum.